madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu heliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa gudoomiyay shirka khamiislaha ah ee golaha wasiirada Soomaaliya oo looga hadlay xaaladda ammaan ee dalka iyo dagaalka lagu ciribtirayo maleeshiyada Al-Shabaab kulanka oo lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan gurmadka xasilinta iyo horumarinta deegaanada dhawaan laga faramuroojiyay gacanta argagixisada Al-Shabaab ayaa sidoo kale looga hadlay sidii loo laba jibaari lahaa howlgalka dib u xoreynta dalka ee sida baaxadda uga socda gobollo badan oo kamid ah jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad u jeediyay xubnaha golaha wasiirada ee kulanka ka qayb galay ayaa ku adkeeyay in ahmiyadda koowaad ay siiyaan dagaalka lagu ciribtirayo Al-Shabaab isagoo oo faray dhammaan wasaaraduhu inay u midoobaan sidii howlgalkani u guuleysan lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa uu soo bandhigay sida dawladdiisa ay uga go'an tahay in waqti kooban ay dalka kaga sifeyso Al-Shabaab isagoo oo ka codsaday dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed inay laabaan dadaalka ay ku garab taagan yihiin dawladooda isla markaana ay ahmiyad gaar ah siiyaan sidii dalkooda looga sifeyn lahaa Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku bogaadiyay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka ku nool deegaanada uu haatan howlgalku ka socdo kaalinta iyo garab istaaga ay u muujiyeen ciidamada qaranka iyo sida ay qaybta uga yihiin howlgalka safka ballaaran ee dalka looga ciribtirayo maleeshiyada nafalcaariga ah ee Al-Shabaab kulankani waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee yeeshaan golaha wasiirada isla markaana uu gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka madaxtooyada dalka